السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأنا wanaagsan asxaabteeda qaaliga meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal yar oo kooban aan kaga hadli doono wigii tagay asxaabta su'aalaha inta badan ay soo weydiinayeen waxyaalaha ay ku saabsanayaan emailaha ugu badan ee boontiyada ka hadlayeen ayaan rabaa in maanta muuqaal yar oo kooban aan kaga hadlo leedinkiis waxa ka mid ahaa sidee ayaan ku dhisi karnaa kalsoonida nafsadeena ee ku aadan suuqani waa su'aalaha inta badan soo noqnoqday ee asxaabta ay soo weydiiyeen misana ay la soo wadaageen waxa ka mid ah su'aalahaas haddaan soo koobo suuqa waan ka baqaa haddii la imaado intriga sidoo kale waxa ka mid ah markaan qaato trade waan ka walwalaa inuu asaliga dhaco waxa kale oo ka mid ahaa trade-ka waa u dhaafaa anigoo isdhahayo weli waxba ka dhiman trade-ka oo anigoo ka cabsanaya intrigii ayaan isleeyahay weli waxba ka dhiman shuruudihii aad ku qaadan lahayd sidoo kale waxa ka mid ahaa trade-ka kolkuu socdo dhaxda ayaan kaga baxaa asigoo aan targetkii gaarin oo macnaha waan ka cabsadaa hadduu uu balaas yar siiyo waan xirta sometimes hadda xitaa waxaa dhacda hadduu asigoo khasaare yar wado inaan iskaga baxo anigoo aan ka baqay khasaaradaasi inay igu sii badato qodobka ugu dambeeya aad ayuu badnaayeen laakiin inta ayaan ku soo koobay qodobka ugu dambeeya waxay tahay trade-ka haddii uu asaliga dhaco mid kale ayaan qaataa ma isxakamayn karo kaasina waxa uu ku sii dhacayaa asal haddaba su'aalihii aan soo arooriyay intii ugu badnayd intaan ka gaari karan aan soo qaatay waxaan rabaa xalkooda inaan ka hadalno haddii Ilaahay haddaba aan isla eegno xalka iyo sidoo yahay arrintan oo idil iyo kuwa kale oo jiraba waxa laga gudbi karaa dhowr qodob hadaad ka run sheegto waxaana ku balan qaadayaa inay mardaba aadan ka cawanin suuqani qodobadaas maxaa ka mid ah marka qodobadaas waxaa ka mid ah koow qofka waxyaalaha ku sababaya inuu arrinkani ka cabsado waxay tahay cilmi yari qodobka ugu horeeya waxay tahay waa cilmigaaga xirfadaada sare inaad u qaadid maalintii waxaad daawataa dhowr muuqaal oo ku saabsan xirfadaada sidoo kale waxaad akhrisataa dhowr page oo ku saabsan suuqa iyo arrintiisa gelina waqti ugu yaraan 2 saac maalintii oo idin suuqa waxa laga rabaa in waxay tahay inaad waqti aad geliso hadaad maanta aad rabtid $10,000 inaad heshid dhanka kale waa inaad 10,000 saac in ka badan waa inaad suuqa aad gelisid okay isku day markaad muuqaal daawanayso sidoo kale aadna akhrinayso buugaag inaad qortid waxyaalaha ugu muhiimsan ee ciwaanada ah marka waxaan ku soo afmeerayaa qodobka koowaad waxay tahay in cilmigaaga aad sare u qaadid haddii cilmigaaga dhisan yahay waxaan aaminsanahay inay kalsoonidaadana ay dhismayso okay qodobka labaad maxay tahay qodobka labaad waxay tahay waa qodob aad u kooban maalintii dhowr saac geli oo dul joog training view-ga ugu yaraan 4 saac maalintii 4 saac maalintii ayaa ka badan waxaadna samaysaa taxliilintaasoo aad u badan sidoo kalena dib ugu laabo tiridadii baxay waxaa loola jeedaa backtesting inaad samaysid wixii la soo dhaafay inaad dib aad u eegtid sidoo kale waxaad eegtaa warar ka soo baxaya kuwa la filaya kuwaana la fileen oo warar waxaa jira kuwa qarsoon iyo kuwaana qarsoon kuwa la sugaya oo sida CBI, BMI, NFB, LADX iyo kuwaas oo kale iyo waxaa jira warar oo ah headline news la yiraahdo website ayaa laga eegtaa kuwaasina ka soo booqo website-yadooda qodobka saddexaad maxay tahay qodobka saddexaad kaliya hal lacag taxliili oo ku sugnaa hal meel hana u gudbin lacag kale qoraalada aadin aqrinayo af Soomaali ay ku qoran yihiin waxaan aaminsanahay in aad ka akhrisan doontaan korayaan ka soo qaadaya hal lacag inaad ku ekaatid waxay ku sahlanaanaysaa inaad meel kale aadan aadin waxayna ku siinaysaa kalsooni buuxda waxaadna la soconaysaa in lacagtaasi ee tuzad shalay waxay bixisay aad garan ogtahay maantana saadaalintaada 90% halka ay waafaqayso aad saadaalin karto sidoo kale waxaa jira qodobka afaraad waxay tahay marnaba ha khilaafan sharciyadaada
marnaba ha khilaafin sharciyada ku degsan trade walba qaadanaysana shuruucdaadu dhameystiran waxba ha iskaga qiyaamin nafsadaada oo noloshaada been ha u sheegin sababtoo ah maanta haddaad adiga isqiyaantid oo aad ismarmeerisid oo aad idhaafsi aad ku qaadatid biri ayaad ka shalaynayda waxaadna ogaataa inaad maalin walba hesho trade qasab maahan maalin walba inaad trade heshid qasab maahan trade walbaad qaadanaysana waxaad ku qaadataa ruulkaaga idil markaan idin leeyahay hal trade keliya taxliili ama hal trade keliya ku ekaaw waxaan aaminsanahay inaad ku baran doontaan dulqaadka ay suuqani ruuxaana dulqaad lahayn marnaba kama mira dhalinay taana horaa loo sheeg waayo waxaad arkaysaa trade aad maanta oo idilna taxliilinaysay aad kori hoos ula socotay oo entry London adigoo ka raba tusaale aad ka weyday entryga maybe inuu ku siiyo New York marka taasi waxaad ku baranaysaa waxay tahay waa dulqaad haddaba mar walbo aad talaabo qaadayso talaabadaasi waxaad ku qaadaa waxay tahay shuruuc waayo trade aad maanta sharci ku qaadatay hadduu TB kugu dhacan waa ku farxad hadduu SL kaaga dhacan waa ku farxad waay waxaad ku qaadatay sharci trade-ka markaad hal rule aad leedahay aad ka tagtid oo maanta SL kaaga dhaco ama ku hareer maro maanta oo idil dhan adiga ayaad is eedeynay haddii qodobkaas aan sugi lahaa maxaa iga dhibi lahay qodobkan saan dabcan marka waxa aan u leeyahay waxay tahay hadduu trade-ka SL kaaga dhaco ama ku hareer maro oo sharci ku qaadatid adiga sharci ku degsan Soomaa marka kama walwalaysid waana garan og tahay inta lacag kaga baxayso oo waayo trade aad qaadanaysid inta lacag aad ku qasaaraysid hadaadan ogeyn suuqani bas ka dhex joogtaa marka okay qodobka shanaad oo aad u muhiim ah qodobkani intaad markaad soo baratid cilmiga soo qaadatid hal lacag soo sameeysid at least xirfadaada aad soo kororsid waxaad furataa account deema ah account deema lacag maahan marka account deema markaad furatid deema ahaan ha wala dhaqmin ee wala dhaqan sida account life ah waxaad ogaataa sida aad deema aad ula dhaqantid inaad ula dhaqmi doontid life kaaga muhiim maahan inaad deemada aad ku qaadato lod weyn waayo haddii lod weyn aad ku gashid haddii xitaa aad ku faa'iidid wax lacaga kaagama soo baxayaan maalinta deemada wax kaliya loogu talagalay waxay tahay waa tababar waa inaad aad og tahay shuruucdaada aad manage gareey kartid aad sida ay tahay aad ula dhaqmaysid ayaa deemada loogu talagalay mooye deemadu ma ahan haddii xitaa maanta $100,000 aad ka qabatid inaad lacag faa'iido aad kala baxayso kaliya waad kugu hagaya suuqa sida iyada ula dhaqantida ayaad life-kan ula dhaqmaysaa taa waa wax la og haddaba maxay tahay marka waxaad ku qaadataa marka deemadaada 10 trade haddii 7 ka mid ah at least 20 trade waa qaadan kartaa intii adiga kugu filan laakiin waxaan ka soo qabsanay inta ugu yar waxaad ku qaadataa 10 trade haddii 7 ka mid ah aad ku guuleysatid 10kaas trade waxaad tahay qof taagan halkii la doonay balse haddii aad 6 ka mid ah aad ku guuleysatid waxbaa ku dhiman ee deema kale furo sidoo kale haddii 5 ka mid ah aad ku guuleysatid nidaamkaaga dib ugu laabo waxyaalaha yaryar ee ka dhiman soo sax balse haddii 4 ka mid ah aad ku guuleysatid oo 6 ka mid ah aad ku qasaartid waxa laga rabaa in gabi ahaan nidaamkaaga aad dib ugu laabatid adigoon akoon aan furanin aad steebyadii aad dib u soo bilowdid kadibna markaad soo saxdid guud ahaan aad akoomada oo deemada ah dib u furatid inta marka intee soconaysaa ugu yaraan 20 maalin ilaa 30 maalin waxaan aaminsanahay haddii sida ay tahay aad ula dhaqantid intaan kuu soo sheegay inaad ka guulgaaraysid laydinkii haddaba muuqaalka kooban asxaabta Birlab FX mar walba waxaan jeclahay wixii su'aalaha la soo weydiiyo inay sida tahay aan ugu soo jawaabo marka
problem walba waxa uu leeyahay xal. xalkuna waxaa la rabaa markii lagu sheego sida ay tahay inaad qaadatid. suuqani ma lahan boss ama manager ama qof ku haga ma lahan. adi unbaa isku ah boss, adi unbaa shaqaale isku ah. cid maanta kula doodaysa, cid maanta ku amraysa ma jirto. marka adi maxaa lagaaga rabaa haddaad tahay qof firiya oo cidna aysan amraynin inaad adiga shuruucaad degsatid kuwaasoo suuqa kugu hagaya. laakiin haddaad tiraahdid anigu qof i hagaysana ma haysto, suuqana madax ayaan u galayaa, haddaad tiraahdid adiga ayaa madax lagugu soo celinaya. haddaba waxaan idiin sheegayaa suuqani maalin walba maalin trade maaha. waxaad ogaataa fursad waxaad arkaysaa weygii oo dhan waxaad arkaysaa in maalin walba trade qurux badan helaysid. hadda weygaan aan ku guda jirno isniin trade fiican suuqa ma uusan lahayn. shalay oo talaado ahayd ayaan waxaan ka qabanay hal trade. shalay oo dhan ka waran haddii hal trade laga qabto. marka maalin waxaad arkaysaa dhowr trade. marka adigaa lagaa rabaa inaad noqotid ruux iska warhaya, wixii lagu sheegana qaadanaya, hal meelna ku ekaanaya. maanta haddii la yidhaahdo halkaana wax laga furay, halkaana wax laga furay, oo wixii la furaba aad reed u ahaatid, marka weliga allah adigoo faramaran ayaad meesha ka dhaqaaqaysaa. asxaabteyda qaaliga aad baad